siyaasiga maxamed maxamuud guuleed gacma dheere oo dhawaan soo gaaray magaalada qaahire ee xarunta waddanka masar ayaa waxuu shir jaraa'id ku qabta hoteelka uu ka degan yahay magaalada qaahire oo lagu magacaabo royal marshal wuxuuna shaaca kaga qaaday shirkaasi jaraa'id inuu gacma dheere u taagan yahay musharaxa madaxweynenimada Soomaaliya oo la qaban doono dabayaaqada bisha aynu ku jirno gacma dheere ayaa sharaxaad ka bixiyay xaaladda siyaasadeed ee maanta dalka ku sugan yahay kadib wuxuu telefishinka u sheegay inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweynenimo waxa uu sheegay inuu yahay ruux waayo aragnimo u leh siyaasadda Soomaaliya halka ay maanta marayso gacma dheere oo ka hadlay musharaxnimadiisa ayaa yiri waxaan maanta ogeysiinayaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo midka adduunkaba inaan u soo istaagi doono una taaganahay sharaxaadda tartanka kursiga madaxweynenimada Soomaaliya aan rajeynayno in la qaban doono bishan aakhirkeeda sababaha keenay inaan isku soo sharaxana waxaan isbidayaa inaan wax ka qaban karo dhibaatada Soomaaliya hadii aan garab u helo ilaahay xaqii iyo mujtamaca Soomaaliyeed aan garab u helo iyo international community-ga waxyaalaha aan isku bidahayo macluumaad badan baan u leeyahay Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira asalkooda iyo sida wax looga qaban karo waxaan ognahay adduunyada marka laga hadlayo dhul maxaa la yiraahdaa ninka mas'uulka ah waxyaalaha uu qabanayo marka uu ka hadlayo waa inay ku salaysan yihiin waxa dhibaatada jirta ay ku salaysan yihiin Soomaaliya dhibaatada jirta ee loo baahan yahay wax laga qabtaa waa wax iska cad waxa priority-ga ugu horeysa waa garan karnaa waa nabad nabadaasina waxay u baahan tahay hadii alla idmo in wax looga qabtaa waa dib heshiisiintuna waa wax dhibaato badan bay leedahay oo khilaafaadka Soomaaliya ka jira ama mid maartay reer u dhaxeeya ha noqdo ama mid Soomaali weyn u dhaxeeya ha noqdo oo ijtimaaci ah ama mid siyaasadeed ha noqdo Soomaaliya first priority wax loo baahan yahay in la qabto waa dib heshiisiin marka la helo markaas ay soo nabadu soo laaban kartaa dhismaha maamulku hadda iminka sharciyan hadii way jirtaa oo adduunyada hadda dawladda waa la aqoonsan yahay laakiin dawladdu baa la rabaa inay wax qabato dawladdu waxa loo aqoonsan yahay inay noqoto mid wax nabadeynta si horseeda marka sida hadda inkastoo hadda dawladdan 4 sano ay jirtay la dhaliilahayo misana wax qabadkeedii waxa kamid ah nabadeyntii iyo dib heshiisiintii banaa wax ka qabatay waan sii wadi doonaa dib heshiisiintan sii wadi doonaa hadii alla aan ku guuleysano xildhibaan waa caddahay inaad musharax tahay kuma cusba dadka Soomaaliyeed in qof madaxweynenimo isu soo sharaxo waxaad ka mid ahayd xukuumaddii ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka meelgaarka Cali Maxamed Geedi haddana sakin waxa lagu doortay ra'iisul wasaare sidoo ku doortay madaxweynaha dowladda federaalka meelgaarka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed maxay kula tahay maanta inaad ku soo kordhinayso Soomaaliya iyadoo ciidamada Itoobiya waddanka ay ku jiraan lana ogyahay adiga inaad saaxiib aad u dhawaad la tahay dowladda Itoobiya dawladda Itoobiya waa sax waan isku fiicnayn laakiin saaxiib ma nihin laakiin dhibaato nagama dhaxayso guud ahaanba waxaan in sheegayaa waa sax su'aalaha aad su'aalaysaan aniga waxa la ii doortay ra'iisul wasaare marka la ii doortana dabcan sharci baan ku fadhino marba hadda inaan tixraaco sababahan isaga tanaasulana waan sheegay adduunkan u sheegay inaan loo baahnayn in la isku qabqabsado sabab qabsiga waa midka Soomaaliya 18 sano gaarsiiyay waxay ahayd maartay in on hadii laba dawladood inaan iska hor abuurmin laba ra'iisul wasaare inaan imaanin taasina waa mid koos gareysay inaan anagu meeshii isaga tanaasulno oo aan deeyno maamulka kale meeshii joogay markaasna waxaan jecelahay inaan wax fiican ka qabto markaan wasiirka ah waxaan qaban jiray wax ka fiican qabto sidoo kale maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaan weydiiyay inuu qaladaad ka dhacay inta uu hayo wasaaradda amuraha gudaha dalka Soomaaliya oo shacbi aad u fara badan ay wax ka tirsanayaan inuu shacbiga Soomaaliyeed cafis weydiisanayo iyo in kale marka koowaad waxaan rabaa sidaan hadda ka hor marar badan sheegnaba ummadda Soomaaliyeed anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca intii ila wadaagtay xukuumadda horeba in aan cafis weydiisano wixii dhibaato ah oo xukuumadda ay ka tirsanayaan wixii wanaago ay sameysana deewaabad sameysay laakiin uma way sameysay taas markaan cafis weydiisano ka bacdi waxaan leenahay waxyaalaha aan doonayno ama aan rabno inaan qabano ama anigu personal ba aan isku taago waa dhibaatada jirta inaan wax ka qabano oo ay ugu horeyso dib u soo celinta dadkii qaxay ama meel kasta ka qaxeen ama xamar ha noqoto ama meel kasta ahaydba in la soo celiyo taasna asalkeeda waxa uu asal u ah dib u heshiisiinta iyo ummadda isfahamsiinta ayaa asal u ah maraan weydiiyay gacma dheere inuu haysto xildhibaanna ku filan oo siin kara codka kalsoonida ayaa yiri waxaan qabaa in ku filan oo inay madaxweyne ii doortaan inay yihiin baan qabaa
dhanka kale musharaxa maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaan weydiiyey haddii uu helo codka kalsoonida baarlamaanka inuu halkiisa kasii dhaqaajinayo amba uu dhaliil ka qabo shirka jamhuuriyadda jabuuti ay ku kala seexdeen dowladda federaalka ku-meel gaarka ee soomaaliya iyo isbahaysiga dib u xoreynta dalka soomaaliya garabka uu hogaamiyey sheekh shariif sheekh axmed. horta markii hore waxaa baarlamaankan hadda joogaa wuxuu ku talagalay ama aan ku talagalnay guud ahaanba in maxaa la yidhahdaa heshiiska jabuuti wixii ka soo baxa iyo baarlamaankan inta la isku daro iyadoo la midaysan yahay in wax la doorto ayaa brograamku ahaa. hadda markaa waxaa dhacday in maxaa la yidhahdaa dowladihii maaragtay iigad iyo oo hawsha ku lahaa soomaaliya inay yidhaahdeen dastuurka iyadoo la ilaalinahayo hal bil ka badan lama sugi karo. waxaan qabaa markaa ama aniga ha noqoto ama nin kasta oo la doorto ha noqdee madaxweynaha ka soo baxa meeshani inuu anytime ee loo baahdo inuu meesha iska casilo ama u banneeyo ama doorasho kala timaado uu ka qayb qaato inuu ogolaado. aniga tayda hadday noqoto bil ka bacdi haddii la yidhaahdo doorasho kale la galaya diyaar baan u ah. gacma dheere ayaan weydiiyey waxaa keenay saacaddan inuu u degdego inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweynenimada soomaaliya xilli ay dhaliil ka imaanayso isbahaysiga dib u xoreynta dalka soomaaliya oo heshiiska la soo galay dowladda federaalka ku-meel gaarka ee soomaaliya taas ay sheegeen inay khataro ku imaanayso kol haddii la doorto madaxweynaha soomaaliya iyadoo aan la fulin qodobadii lagu soo heshiiyey amba lagu gaaray heshiiskii jamhuuriyadda jabuuti ay ku kala seexdeen isbahaysiga dib u xoreynta dalka soomaaliya. taa waxaa keenahayaa marka koowaad dastuurka wuxuu leeyahay waa in haddii madaxweynuhu uu meesha ka baxo 30 maalmood gudahooda waa in wax lagu doortaa. haddii la bedelahayo waa in 184 xibnood 3 udalool 2 meelood waa inay bedelaan oo dib u dhigaan. labadaa qodob ayaa marka u furan gudoomiyaha baarlamaanka inuu bishii gudaheeda wax ku doorto iyo inuu baarlamaanka inta shiriyo dib ha loo dhigo uu yidhaahdo. maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaa baaq u diray ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan rabaa inaan meeshaan uga baaqo ummadda soomaalida. waan fartiin u dirahayaa qaranka soomaaliyeed wuxuu ku soo laaban karaa heshiis ummaddu heshiisuu ku soo laaban karaa kuma soo laaban karo xal ka yimaada international community iyo wax kale ka yimaada. mas-uuliyadda shacabku ha isi saareen, mas-uuliyadda iyagu ha heshiiyeen, yaana heshiisiinhayo shir noo qabanhay yaanan oranin. shacabka soomaaliyed guudaan marka waxaan farahayaa fardiinta caynkaasa baarlamaanka soomaaliyeed ee hadda aan maaragtay haddii alla idmo laga sugayo inay madaxweyne doortaana waxaan kala dardaarmahayaa oon ka codsanahayaa. wax badan baa nala dhaliilay. codkeennu waxaa la rabaa inuu soo saaro mas-uul la yaqaano oo wax qaban kara oo aan baarlamaanku hadhow codkiisa aanu ka shallaayin. waan is ognahay haddaan nahay baarlamaankeena dhaliilo badan baa naloo soo jeediyaa. mahad carab waa cali telefishinka universal القاهرة.